Dowladda Mareykanka oo ciidamadeeda kala baxaysa Soomaaliya iyo wadamo kale kadib muddo ay ku sugnaayeen si aan u gudagalno muuqaalkan like saar aragtidaada kadib oo share garee walaal mahadsanid sida uu daabacay wargeyska New York Times madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka tagaya dhowaan ayaa qorsheynaya in uu la baxo askarta ka joogta dalalka Afghanistan, Ciraaq, Soomaaliya ka hor inta uusan xafiiska wareejin. Kumanaan askari ayuu qorshuhu yahay in uu saaro bisha Janaayo 2021 si uu ugu wareejiyo aqalka cad ee dalkaasi looga arrimiyo si uu shaqada ula wareego Joe Biden, madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalka Mareykanka. Waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa Isniintii loo gudbiyay dalabka celcelis ahaan Mareykanku uu dib ugu gurayo ama celinayo askar gaaraysa 4,500 oo gudatay waajibaadkooda shaqo sida uu sheegay wargeyska New York Times. Qorshaha laga hadlayo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ka mid ma ahan saraakiisha iyo askarta ku sugan Kenya iyo Djibouti oo daris la ah Soomaaliya, halkaasoo laga fulin karo duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska sida ay sheegeen saraakiil kala duwan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa aaminsan in tirada yar ee ciidamada Ameerikaanka ah ay ku filan yihiin la shaqeynta askarta Afghanistan iyo Ciraaq si ay dusha u saartaan mas'uuliyadda ugu weyn ee xasilloonida sida uu qabo madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka tagaya. Khubaro ciidan oo la hadlay telefishinka CNN ayaa sheegeen in halista dagaalyahanada Al-Shabaab oo ka mid ah faracyada Al-Qaacida ay muuqato, sidaas awgeedna ay qaadi karto weeraro argagixiso sida ay sheegeen, balse hadda cabsida ugu weyn ay hortaagan tahay duqeynta lala eeganayo. Roberto Brien oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Trump waxa uu sheegay in dalka Afghanistan laga soo saaray 2,500 oo askari, waxaana hawshaasi la fulinayaa bisha Janaayo horraanta sanadka 2021 sida uu hadalka markaasi u dhigay. Mark Esper ka hor inta aan shaqada ka ergin madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Trump waxa uu aqalka cad u gudbiyay warqad ku saabsan walaaca uu ka qabo go'aanka askarta Mareykanka ee looga soo saarayo dalalka ay joogaan ee Afghanistan, Ciraaq iyo Soomaaliya.